madaxweyne inoo soo qaad ictiraafka yaynaan dib dambayso isugu imanin nimankii madaxweynuhu hore uma tegin madaxweynahan hadda jooga Mareykanka in rag badan oo mucaaradka ka mid ah in la kaxayo saacadaha soo socda ayaa la filayaa in madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ay safar ku tagaan waddanka Mareykanka Soomaaliland maalmihii ugu dambeysay waxaa si weyn loo hadalhayay safarka madaxweynaha haddaba shacabka ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland sidee bay u arkaan safarka uu madaxweynuhu ku tagayo waddanka Mareykanka waxaan u arkaa runtii safar taariikhi oo madaxweynuhu hore uma tegin madaxweynahan hadda jooga Mareykanka laakiin dawladda adduunka ugu weynaydba marka waxaan u arkayaa safar taariikhi oo uu guul kala iman doono ictiraafkina waxaan filayaa inuu ictiraafku yahay safarkani soo qaaday madaxweynuhu waxaana ila tahay markii ugu horeysay uu Soomaaliland madaxweyne ka noqday markii ugu horeysay u tagay inuu guul Ilaahay kala kulminayo ayaan u arkaa anigu oo tii aan u bugnay ee ahayd ictiraafka inuu Ilaahay nagu soo dhiibo sanadkan maanta waxaan ka rajaynayaa inuu noo soo qaado ictiraafka dalka waa loo soo halgamay isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii soo halgamay anna aqoon dheer baanu lahaa Muuse Biixi Cabdi tacab fara badan baa dalkan galay tacabkii galay maantuun bay dhowdahay madaxweyne inoo soo qaad ictiraafka yaynaan dib dambayso isugu imanin nimankii waxaan leeyahay cadowga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka naxsan arrintaa ee Mareykanka u tagay ee Soomaaliland yaan la ictiraafin ee xaasidiinta waxaan leeyahay wartiina ku filaada dalkiina wax ka dhigta anagu dalkaygii baanu wax ka dhigannay waanu idinka raysannay dib dambayso isugu iman mayno war hanugu riyoonina hana daba soconnina dantiina gaadha dantiina anagu danteedii baanu gaadhnay allaha nabadgeliyo arrimaha uu socdana allaha u fududeeyo taasi waa taa ilaahayna waxaynu ka doonayno haynooga soo suuro geliyo waxaan kaloon leeyahay waddanku xaalad adag buu ku jiraa xaalad abaareed buu ku jiraa dawladdu booskii looga baahnaa lagama hayo waxaan leeyahay dawladda lacagtii aa uruurinaysana meel walba u diiddeen maantuu manaasibkeedii taagan yahay ha lagu bixiyo midda kale waxaan leeyahay barnaamijka siyaasadeed ee imminka waddanka ka aloosan isagana ha la dejiyo weliba muuse waxaan leeyahay madaxweyne anoo ku taageersan laakiin imminka ma dhegaysti ayaad noqotay dadka dhegayso xisbiyada dhegayso waayaha dhegayso si wacan uga jawaab madaxweyne saasaan ku leeyahay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu abaarta inaga jabiyo amuuraheennana inoo sahalo khayrna ina waafajiyo khalkhalka iyo khilaafkana alla inaga saaro intaa ayaan leeyahay wakaa warkaygu waa soo dhaweeya safarkaasi waxaan ilaahay ka baryay inuu ku soo guulaysto safarka wax guul ah wax midho dhala waxaan shacabweynaha Soomaaliland ka codsanayaa inay iska yareeyaan burburinta madaxweynaha safarkiisa maadaama balaha bisna ayaamihii dambeysay ruux halahayay inuu safarkaas uu yahay jaaliyadda Soomaaliland oo kaliya laakiin safarkaas waa safar caalami ah oo madaxweynuhu uu martiqaad ka helay dawladda Mareykanka waxaana jeclaan lahay madaxweynuhu inuu ka haysto dad aqoon-yahana oo runtii rugcada aan lagu kaxaynina jeclaysi ee lagu kaxeeyo Soomaaliland dalnimo oo runtii ka turjumi karo xaqiiqada og wixii Soomaaliland ay dawladnimo iyo ictiraaf ay ku doon lahayd ay magaranaysaa ay ka turjumi karaan marka waxaan jeclaan lahaa inuu ka haysto dad rugcada ah gaar ahaan wasaaradda khaarijiga wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda rag firfircoon oo la yaqaano runtii aan soo koobi karin imanka magacyadooda xataa waxaan jeclaan lahaa haddii la kari karo in rag badan oo mucaaradka ka mid ah in la kaxayo maadaama waxaan loo socdo ay tahay howl qaranka uu leeyahay ayna ahayn howl ku kooban tiimka iyo Muuse Biixi aan ku koobnayn ay tahay howl qaranka loo baxayo mucaaradkana inuu rag firfircoon oo ka kaxeeyo taasoo laga turjumayo waddankii inuu mucaarad iyo muxaafid loo midaysan yahay aragtida aan qabno oo ah Soomaaliland in la aqoonsado la ixtiraafo xitaa shacabka rag badan oo waxa joogo mutacallimiina la kaxeeyo
aan la odhan inta yare ee kursiga ku fadhida lagu soo koobin dad badan la kaxeeyo dad badan baa jira maanta cilmi badan ku jiro laakiin aanan loo jeedin